dadku waxay isweydiinayaan Christmaska in la xafladeeyo ma banaanta in la tahniideeyo ma banaanta in laga qayb qaato ma banaan tahay in la dhigtaa ma banaan tahay intaynan ma banaanta iyo ma banaana ka waramin aan isweydiinay muxuu Christmasku yahay Christmas Christ ومخلص نبي عيسى وجهه والسيفير مصنع ومقطع على بعضه ينا معنى هو ميلاد كريسماس وميلاد المسيح أو ميلاد المخلص مخلص كي قرطو دنتي قرطو دشاي عيدها نمانك كريستان كاهي أما مسيحيين تاهي سيبوكتو دا قرآن بقول يا فرتن عيدود بكبدين بقول يا فرتن ما المودو سيليبريشن إسلا سمايو أفريقيا طبعا باهم واوين أفريقيا طبعا كاتودبا وسي واوين تودبا دا واوين محاكمة دا مركاه لبدان هدي قردتكو كهدلاني كريسماسكا إيا إيستركا مد وحيلين ومالنتو عيسى دا الشيء مدنا إياقو سيدا يقبان ومالنتي اللي دلي سؤال شيء سويدين تلا waxay tahay markaa ma la garanaya horta maalintu Ciise dhashay ma loo dabaaldegi karaa hadda mayso maalin la garanaya ma tahay Bible-ku haba yaraatee birthday-ga waxba kama sheegin Ciise qoliya qaarkood baa waxay yiraahdaan Ciise wuxuu dhashay sida Luuq ku qoran Ciise wuxuu dhashay maalin يعني وقتي أي قلدي أرجع راعي هبين كي مركي أرجع صحراءين أي ورك مقلين وها معروفة بين هذان فلسطين وينتر كينن هبين كي أرجع دبد الوهينين وينتر هو وقت نحنات مركا وقت قاسي وينتر من نقول كربي ودلي شدا وهالك الشيخ دي داتنا وسنة كدلي شدو تمرتي مريان لا يري روح تمرتو قرمه بصلاتها حلا يغناين السمرك بصلاته حقاقه كليلك بصلاتها ما دام التمر لا يري جيت كا تمرتها روح رطب وكسو دادنيو وينتر كان رطب ما جيرو دي لا ديسمبر رطب ما جيرو هذا بحقو كيمي قرايدي هوري قرنيي لباد يا صدحات وقتها عيسى الله نسبينيه دلشadiisa ka dambeeyay haba yaraatee wax dhalashada ciise la yiraahdo kama hadal marka la eego kutubtoodu inta badan dhimashadiisa waxay ku sheegaan iyo crucifixion-ka ayay ka warantaa laakiin kama waranta dhalashada in badan Alexandria origin of Alexandria nin la oran jiray oo noolaa qarnigii 2-3 ayaa wuxuu ku sheegay celebrationiska birthday-ga la yiraahdo inuu yahay pagan in loo dabaaldego maalinta dhalashadu waa diinta wathaniyiinta iyo baaganimada buu leeyahay waa nin masiixi ah oo qarnigii 2 ama 3 nool wuxuu leeyahay dabaaldega la sameeyo ee ku saabsiisan birthday wax la yiraahdo وباغنسك دقن كودي بولي تمعنى هذا حويا وقتها ماشي نكاسي جوغي إن كريسماس يا وحلو دبالدقيه وحاسيتونا كجيرين سيدا لوغي هي قرنقي لباد كريستنادي نولا ما يدبالدقي جيرين ولذلك بان نين قرايا وكلمنتو في الاسكندريه وداد ليلى هذا وداد دودو كميدي ayaa wuxuu leeyahay ciise dhalashadiisa tawaa'ifta kooxaha kristanka kala nooc ah waxay soo propose garay waxay soo bandhigeen buu leeyahay maalmo kala gadisan waxyaabaha cajabta lana waxa kamid ah maalmaha 25 December marnaba kuma jirtaba waa maalmo kale maalmo ay kristanku isku haystaan goor mu dhashay Clement qoraagiisa waxa uu ku tilmaamaya qola waxay yiraahdeen sanadkii 28 Augustus bishii bakhal la yiraahdo 25 oo dhiganta May 20 buu dhashay bay leeyihiin
sanadkana 28 bay ka dhigeen Augustus waqtigiisii qolo kale waxay yiraahdeen 28 kaba ma ahayne iyo waqtiga Augustus toone waa 16kii Tiberius waqtiga la yiraahdo ninka la yiraahdo waqtigiisii waxaana yiraahdeen wuxuu Ciise dhashay 22kii Abriil qolo kale waxay yiraahdeen wuxuu dhashay 15kii Abriil qolo kale waxay yiraahdeen wuxuu dhashay 20kii Abriil idan waqtiyada casriga ay sheegayeen oo dhan waa Abriil iyo May iyo March wax December iyo meesha tani kuma jiraan waxay isku hayaan nabi Ciise ma March buu dhashay mise Abriil buu dhashay mise May buu dhashay taariikhda kala gedisan bay tilmaamayaan qarnigii afraad ayay soo bilaabantay oo ay caan noqotay waxaan loo yaqaano 25 December iyo 6 June ee 6 January la sheego kiniisada kristanku qarna 25 ay u dabaaldegaan Orthodox waa Catholic iyo wixii raacsiisana ka dambeeya Orthodox-kuna waxay u dabaaldegaan 6 January sadaradeed kiniisada barigu January 6 bay dabaaldegaan kiniisada galbeedkuna 25 ay dabaaldegaan January 6 waxay kala ku beegan tahay يوم التعميد maalinta ay aad ka weynayeen ay leeyihiin Ciise biyaha la galiyo laga soo saaray oo tacmiidka loo sameeyay ba ku beegantay marka 25 December laga soo bilaabo ilaa 6 January 12 maalmood ba qaar baa dabaaldega wada siday ku timi marka hadii aynu leenahay taariikhdii hore lagu bahayo maalintu dhashay qoraayadii hore kuway qoreen waxay sheegayaan inay ama Abriil ahayd ama May ahayd ama March ahayd xagay ka timi hadaa December tan iyo January tani laba theory baa jira way qoraan labada theory mid baa aad u caansan ka aadka u caansan wuxuu sheegayaa 25 December diilnaawayaashii Scandinavian-ka ku noolaan jiray waxay u dabaaldegi jireen wax yuulka la yiraahdo Jarmalka iyo kuwaasina waxay u dabaaldegi jireen Saturnalia wax la yiraahdo ilaaha cadceedda iyo ilaaha beeraha baa loo dabaaldegi jiray qolana waa ilaaha beert god of agriculture qolana waa ilaaha cadceedda ama se cadceedda loo dabaaldegayay inay soo noqoto waa waqtigii 25 December waa waqtiga qaybahaasi madowga galaan ee maalintu yaraatay habeenku bato marka waxa la weydiisanayaa inuu soo noqoto cadceeddaas kaasi waa theory-ga ugu badan waxay leeyihiin oo hadaa maalin gaaleed bay ahayd wadaadadii hore kristankana waaba kuwa maagay celebrationska birthday-ga oo dhan maxay kuwan damba u aqbaleen waxay yiraahdeen waxa loo aqbalay maalmihii markay kristanka qaateen bay yiraahdeen war maalmahoodii ay dabaaldegi jireen aan maalinta bedeluun oo nidhaahna waa maalintii Ciise dhashay oo shaqo kristan aan samayno halkii ay shaqada sanamka la caabudo ama cadceedda la caabudo ay wadeen أن كبدل عبادات مسيحية بينادي قرضة كلنا وحي لايهين ما بيش ماي أما مارش أما مالمهنا نشيجينا مثلا شريعة لبعضنا مارش وحكومة بيجي بيلايين مالنتي يوم التبشير كمالنتي هذا يوم عيد البشارة مالنتي جبريل ومريم نقول بشاريي إن الملصين أيوه waxay yiraahdaan maalinta ilaa iyo December marka la xisaabiyo waxa u dhaxaysa 9 bilood marka wuxuu maan qiimeynay maalintii Jibriil uu yimi baa inta ahayd haduu birthday-gi haduu si caadi ah u dhashay inuu December dhalan karo theory-ga qolada theology-ga sheega laakiin inta badan ka caanka ma aha 6 ay isku hayaan 25 January ma 5 December ba mise 6 January na waxay u dhaxaysaa maalmaha ay ku muransan yihiin oo ah 6 April buu dhashay mise 25 March buu dhashay isla markaana crucifixion-ka iyo Ciid al-Bishaaru annunciation-ku waa isku waqti ayay iyagu qabaan maalintii loo bishaareeyay isla maalintaas la dilay isla maalintaas uu urgalay
dabeetana waqtiga ka mudhash soo duuduub waxaan leenahay ciise goor uu dhashay cidi garan mayso oo haddaan goor uu dhashayba cidi garanayn maxaa loo dabaaldegaya waxyaabaha cajabta ah waxaa ka mid ah ee ciise ku saabsan qarnigii sagaalaad khilaal alqarni التاسع عشر aan idhaahno waxaa bilaabmay brotestanka qaybo ka mid oo leh waa bidco kaatoligu samaystay sidaa daraaddeed iyo in maalintaa la dabaaldegi kiniisadda kaatoliga baa radiday oo sii tiro badisay dagaaladii ingiriiska dhex marayay wakhtigii ay jireen waxaa la mamnuucay in la dabaaldego maalintaas Scotland 1640kii sidii loo mamnuucay 1958kii dhawaa baa la soo celiyey in December 25 dib loo dabaaldegi karo waddanka Maraykan mustawtanaadka Protestantiska radicalka haysan jireen 1659 iyo 1681 sida Boston iyo wixii la mid ah mamnuuc bay ahayd in 25ka December la dabaaldego waxaanay u arkayeen inay tahay caado Ingiriis oo foolxun taariikhda markaynu dib ugu noqonno markaas masiixiyiintii noolaa waqtiyadaasi waxay u arkayeen inay tahay caada wathaniya oo aanay bannaanayn in la dabaaldego waxaa cajiiba markaa maharajaan kaatoligu ay sameeyaan waxa ku saabsan oo dhan qolyaha kale waxay u qabaan inaanay bannaanayn dhan kale markaan ka eegno waxyaabaha la sameeyo oo ah maalan in wax la bixiyo waxbixintani xaggay ka timi waxbixintani waxay ka timi imbaraatoriyadii romanska ka horreysay tan December maadaama ay cibaadaadkooda samayn jireen waqtigaas ay wax bixin jireen kiniisadda kaatoliga waageedii hore mamnuuc bay ka dhigteen waqtigaas sadaqaadka la bixiyo 25 December iyo waxa kale wax la bixiyo bari dambe alquruun alwasطaya ayay ogolaadeen intii hore waxay lahayn waa caado wathaniya ayaan la bixinin waxa kaloo jira wadaad Kristino Armenian oo Nicola la odhan jiray Nicola ayaa barigii dambe quruun alwasطa middle age markii la joogay ayuu habeenkii sadaqa intuu la gudo ayuu dadka siin jiray mar dambe oo qarnigii 19aad baa nin shaacir Maraykani gabiyay dabeetana isaga gabayga ku sameeyay ninkan maryaa cascasita ee gadhka cad leh ee maryaa cad leh ee bahasha yar ee ghazaaladu maxaa la yiraahdaa deeradu ay jiidaysay caruurta intuu wax u qaybiyo habeenkii meesha ka soo rida gabiyaha Maraykan baa waadanba samaystay idan caado jirta maaha geedkan kristanka ee la taago waa geedkii wathaniyiinta Jarmalku ay taagi jireen idan caadaadka meesha lagu samaynayo dhami waa caado kuwii wathaniyiinta ee diin laawayaasha hore ay samayn jireen haddaba qoladii kristanka ahayd waxay leeyihiin hore wax bannaan maaha hadduu kristanku halkaa ka taagan yahay innagu markaa inaynu dabaaldegnaa oo Christmasnimo u dabaaldegnaa ma bannaanta su-aashu waa taas inaynu innagoo muslimi dabaaldegno oo u dabaaldegno ciid wathaniya oo wadaadadii kristanka qaybo badan oo ka mid ah ay leeyihiin waa ciid wathaniya ciid xataa ciise dhashay maaha oo si kale haddaynu u nidhaahno been abuura waan ahayn maalintii ciise dhashay siday u badan yihiin warka ay qorayaan maxaa loo dabaaldegayaa markaa ma waxaad dabaaldegaysaa maalin ay qaar intay been abuureen oo bidco agtooda ka ah haddana ay leeyihiin ilaah baa dhashay iyadoo ilaahay leeyahay waqaaluu ittakhada arraxmaanu walada laqad ji'tum shay-an idda takaadu asamaawaatu yatafatarna minhu watanshaqu alardu watakhiru aljibaalu hadda an dacuu lilraxmaani walada wamaa yanbagii lilraxmaani an yattakhida walada xadiidka saxiixaana uu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa wuxuu yidhi aadanuhu ina aadan wuu icaayaa waanu ibeeniyaa
وإعايا وحلية إنم بوردالي أنا جو أهبو إلهي لي الله الأحد الصمد وحنا دالين لينا دالين وإبانية أو حلية هي سعلين مايو إيضا أنا أبورك يهري أبورك الدنبي قاعد كي